أنا بلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنتوا عارف كان اسمه يجيب كوركا اللي هذا رومارينتا جماعة يونس. كلنا كان ما أنتوا بكوسة بسنة هاي حيوان لقصة بيست فيسبوك وكوركا لو جانا بورتي. حيوان كاس مع كوكرن كوركا اللي هذا رومارينتا جماعة يونس يا كوكرن. وأنا كاس مركو حنوشي هنا اللي هذا مالك استيجوجان ده اللي يجيبت إنه يعني حيوان بين عبورة وده الشخصيات اللي سمستين waxa loo xil ugu qoran aan mas'uul ka ahayn mas'uuliyaddeeda ay qaadayso cidii samaysatay waxaan rajaynaynaa inaan yani dadkii samaystay inaan ogaano si dhaqso ah hadii ilaahay yiraahdo waana mahadsantihiin insha Allah. أنا بلا. بسم الله الرحمن الرحيم. walaalkay sida uu sheego way shirkan wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada horumarinta beesha Galmaax Yunis. waxaan uga hadlaynaa in naga been abuurto oo ciwaan aan uga lahayn lagu qaraabto Facebook aan lahayn dadka oo bulshada aan ka dhalanay been lagu sheego inaad beri ka nahay ayaan sheegaynaa dadkii sameeyeen ciddii samaysanay waan ognahay laakiin insha Allah taala waqti soo socdo waan ogaa doonaa wixii dhici doona iyo wixii kalena wax kasta oo shirkeena oo ka soo baxo oo barnaamijka soo qabano waxaan ku arki doontiin website-yada iyo baraha aan ku leenahay bulshada cid waliba oo unuka naga tirsanay oo bartaan meeshaan hadda aan fadhido inay beri ka tahay ayaan sheegaynaa waxa meesha lagu soo qoray oo ujeedada laga leeyahay in dhalinyarada beesha Galmaax Yunis in tashuush iyo faraar dhaxdood la dhaxdhiga ayaa loo baahan yahay mana qaadan doono waana sii socon doonaa dooladmo insha Allah taala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير دقدقة وسوية قدوميها أورك دليرada horumarinta beesha Galmaax Yunis iyo guddiga sarsare ee ururka dhalinyarada beesha Galmaax Yunis. shirkaas oo ujeedkiisu ahaa Facebook la sameeyay oo anaga aan wax shaqo aan ku lahaanin oo ay ku qoran tahay ururka dhalinyarada beesha Galmaax Yunis. anaga haddaan nahay ururka dhalinyarada horumarinta beesha Galmaax Yunis wax baraha bulshada anaga aan shaqo ku leenahay ma jirto maadaama maalmaha siyaasadda ay u badato baraha bulshada in Facebook wax la isku soo dhigo ama war la isaga tabiyo ama la isku dacaayadeeyo ama xataa siyaasadda lagu kala war qaado Facebook anaga wax siyaasadan shaqo ku leenahay ama Facebook anaga aan sameynay ma jiro cid samaysayna kulleeyta ujeedada ka leedahay iyada qusaysa wax anaga oo dadkeena oo lagu dhibaateynayo ama dad islaameed lagu dhibaateynayo ama anaga lagu dhibaateynayo ama anaga dhaxdeena isku dhibaateynayo inaan sameeyno anaga diyaar uma nihin. ururka dhalinyarada wuxuu u istaagay in dadkiisa tolkiisa iyo dadku uu ka dhashay inuu intuu isu soo dubo isu keeno hal midaysan uu ka dhigo maahin ururka dhalinyarada anaga ma aanan u sameynin inaan inta Facebook sameysana aan dadku dacaayadeen wax dacaayad la yiraahdana anaga shaqo kuma lihin page-kaas la sameeyay iyo hadda Facebook laga sameeyay cidda sameysay kulleeyta waxay ka dan lahayd iyada ka gun gaari doonto wuxuu yahay laakiin anaga ahaan maadaama sawirada hadda meesha ka muuqdo oo dadka guddiga u sirsareeyay uu yahay wax shaqo oo anaga aan ku leenahay ma jiro anagana ma sameynin ciddii samaysatayna waxay ku samaysay iyada lagu xisaabtami doonaa ciddii ay wax ka samaysan iyada ku xisaabtami doontaa. wabillahi tawfiiq. anagana shirkan degdeg ah waxaan isugu yeernay inaan wax shaqo aan ku lahayn inaan cadeeyo wax shaqo aan kuma lihin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا ليال ساود أكتين أي كدواجين ولا له وحب ما مهن صباح ذي إن سوشيال ميديا هالسكيب بين شركته أيضا إذا الباقي جوت حافظ ده أي سمي سعوان
ciwaankaas ay ku been sheegayso ururada ama hay-adaha ayagoo sheeganayo magaca dadka waxgalka u ah ummadda Soomaaliyeed ama warjooga u ah ayadoo aan shalay darad iyadoo taariikhdu markay tahay 24-kii bishii 10aad 2018 ayaa waxaan ku aragnay baraha bulshada urur oo magaca dhalinyarada Galmaax Yunis beed ku samaystay wuxuuna soo dhigay sawiradii dhalinyaradii ururka horumarinta Galmaax Yunis sida oo jeedaan warqadan waxaa ku taalo magaca ay qaateen magaca waa magacayni sawiradana u jeedaan waa sawiradeeni shararkii anaga qaban jirnay ay ka soo qaateen sawirada website iyo baraha bulshada ay ka soo qaateen ayagoo iska dhigayo magaceena ay marka hore si positive ahaan waxay u sheegeen inaan dooran gudoomiye waxay ka damacsiina ma ogin kulli qofka marka hore marka wax sameeyo ama waxa waxadayo wuxuu ka hadlayaa dhanka positive hadhow dambe waxa laga yaabaa inuu negative keeno marka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan adduun weynaha beesha anaga ka dhalanay Galmaax Yunis qaasatan waxa ogeysiinaa inaan ciwaanka anaga wax shaqo ku leeyahay ururka dhalinyarada beesha Galmaax ayaa lagu qortay wax shaqo anaga ma kulihin waxa laga yaabaa dad sameystay inay la damacsan yihiin arrimo kala siyaasadeed ama barnaamij ay kala yihiin beeshkana waa kanaha si fiican iskaga fiiriya anaga haddii aan nahay bahda dhalinyarada Galmaax waxaan leenahay guddi warfaafin guddigaas warfaafinta wuxuu codadka ay siiyaan ama wareysyada ay siiyaan website-yada iyo idaacadaha ka dhisan magaalada Muqdisho ama kuwa ka dhisan wadamada caalamka iyo website-yo official ah oo la wada yaqaano marka haddii ay noqoto inaan anaga page samaysano waxaan soo gudbi doonaa page magaciisa iyo mas'uuliyadiisa laakiin ma aha qof waxa iska qortay qof magaca iska qortay inuu magaceena ku been sheego marka waxaan uga digaynaa cidda samaysatay ayadoo sogta anagana waa ognahay inay ka waantoodo waxyaabaas camal magacaan ma aha magac shakhsi liya ama koox yar ay leedahay magacaan waa magac ka turjuma beel dhan oo beelweynta mudlood ka mid ah beelaha deegaanada Muqdisho ayuu magacan ka turjumaa marka cidda carqalad waday adeeg u dhibay hadhow hadda iska daa annaga ku ognahay waan ku soo saari doonaa waan ku qaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaas wax laga yeeqsado way Galmaax Yunis maanta ma dhalan ururka Galmaax Yunis dhalinyarada maanta ayay kaceen ayay isabaabuleen ayagoo u doodayo xuquuqdooda cidna weerar kuma ahan dawlad weerar kuma ahan mucaarad ma ahan cid ay u socdaan ma laha shakhsiyan weerar kuma ahan laakiin waxay u doodayaan oo kaliya wixii ka maqan ayaga marka haddii aad magac qaadato ama wax ku aflagaadayso ama aad wax kale ku hadlayso hadhow dambe waxaad leedahay ayaa la qabsan doonaa laakiin waa diidnay mana la qabsan doono shaqana kuma lihin mas'uulna kama lihin haddii aad Facebook samayseen shir jirayd ayaa inta qabano ayaa sidaan oo kale u soo cilaamin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wixii kale ka yimaadana ayaga ayaa jeebka qaadi doonto cidda samaysay waana maasantihiin bahal saxaafadda aad ayay idinku mahadcelinayaa sida sharafta leh ee aad noo duubteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim waxaa meeshaan isugu nimid waa guddigii waa dhalinyartii horumarka ka shaqeynaysa beesha Galmaax Yunis waxaa maanta isugu yeeray cawasho aan ku aragnay Facebook sida ugu hadlayaan walaalahay waa ku saxan yihiin waana ku taageersanahay annaga cidna ma u jeedno cidna maradno dhacayn gaarunihi hadafkeena iyo mowqafkeena wuxuu uu yahay inaan dhalinyarta midayno waxaan ka codsanaynaa dadka jecel inaan dhalinyarta isku maanin calooshooda waxaas ka bixiya wixii hore way dhammaadeen dhalinyarta aqliga yeelateen way isfahantay insha allahu tacaala waxaana diyaar u nahay dadka rabo bulshada inay nagu diraan inaan gacan bir ku qaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala dhalinyartan kulli waa israacsan tahay كل كلام كحية دولار كان جودي كلي حواي وحلوة هذا إنه حتى هاي ويب سايت كفيسبوك وأنا سوق قبضنا دولار إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.